Assalaamu calaykum. Kusoo dhawaada casharada taxanaha ee Class Academic and Technology. Waxaan kusoo qaadanay software kala duwan sida film editor-ka iyo design-ka iyo casharo kala doora. kulan wanaagsan mar kale kusoo dhawaada casharkeena 8aad oo aan kaga hadli doono sida qofka wajigiisa shucaaca loogu furo. Casharka 8aad maanta waxaan kusoo qaadan doonaa sida qofka wajigiisa aad kaga dhigtid mid aan la garan karin sida hadda kaga muuqata. Okay, haddaba casharkeena ayaan guda galaynaa. Waxaa ka noo yaala muuqaal caadi ah oo video ah oo background-kiisa uu yahay green screen ayaa halkan nooga muuqanaya. waxaan doonaynaa inaan qofkan wajigiisa shucaaca ku furno. haddaba waxaan leenahay title baan ku dhufanaynaa. title markaan niri waxaan kasii dooranaynaa new title oo default title-keena caadiga ah baan kasii dooranaynaa, kadibna okay baan iska leenahay. sidaa markay noogu soo gashay waxaan doonaynaa inaan soo qaadano calaamadda le circle-ka ayaan soo qaadano. qofkan wajigiisa inaan ku aadino ayaan doonaynaa. qofka wajigiisa ayaan ku aadinay. markaan ku aadinay kalarkan rabnaa ayaan ka dhigan karnaa. kalarkan hadaan ka dhigno kalarkan madowga oo kaleeto circle-ka oo dhan madoobayno wuxuu noqonayaa circle madow ayuu noo noqday. kadib waa kansalaynaa. markaan kansalnay waxaan soo qaadanaynaa circle-kii ayaan raadsanaynaa. hadda meeshii ay noogu jireen halkan kama muuqanayso sababto oo ah wixii dhan naga maqan. waxaa weeye qaybtaan aan tagaynaa. qaybtaan markaan tagnay waxaan helaynaa calaamadeeni hadda aan soo qaadanay aan soo samaysanay ayaan soo qaadanaynaa. waa tan halkan ayaan soo dhiganay kadibna ku kala bixinay. muuqaalka korkiisa ayaan ku kala bixinay. maxaa dhacday in qofkii dhamaa uu madaxiisa uu noqday madax lagu gambiyey weel madow. okay, marka waxaan leenahay waxaan ku dhufanaynaa title-kii ahaa kii aan madaxa ku qarinaynaa ayaa hal mar click siinaynaa. waxaa noo soo baxaysa qaybahan ayaa noo soo baxaysa motion iyo kuwaan ayaa noo soo baxaysa. kadibna waxaan ku dhufanaynaa qaybtan ka hooseysa motion-ka ayaan furaynaa oo la yiraahdo capacity. markaan furno qaybta 100% bay joogtaa. waxaan leenahay halkaan sii furaynaa. halkan waxaa noogu qoran list aad u fara badan ayaa noogu qoran oo midba nooc tahay. hadda waxaan dooranaynaa nooca la yiraahdo dissolve ayaan dooranaynaa. markaan dissolve dooranay tiradan ayaa qabanaynaa. waxaan u raacaynaa xagga ayaa u raacaynaa. waxaa dhacday waxay noqotay ciid oo kale meel lagu firdhiyay ee qofkii wajigiisa u ekaaday. ambaraaweena haddaba se uu noqday oo muuqaalkaas noogu soo baxayo. waxaa ujeedaa qofka wajigiisii in uu yahay ay si fiican loo garan karin oo uu yahay biriq iyo ciid caadi oo kale oo taasoo ah in qofka si fiican loo dareemi karin. haddaba markaad doonayso inaad qofka wajigiisa qarisid sida ayaad samayn kadhaa. haddaba waad kasii yarayn kadhaa oo hoos ciira ka dhigi kadhaa. wax yar oo dhibca ka dhigi kadhaa. inta waad u isticmaali kadhaa. marka waxa weeyaan ujeedadu dad doonayso inaad qof wajigiisa aad doonayso inaad qarisid markaad doonayso inaad samaysid ayaa sidan samayn kadhaa. deetana waxyaalo badan oo kala duwan loo adeegsado ayaa jira. marka kan ayaa ugu habboon. qaybo kaleeto way jiraan. casharadana dambe ayaan kugu tusi doonaa haddii Ilaahay idmo. dad weyn oo casharkeena maanta ka lahayn waxa way sida wajiga loo qarsho. waxaana samaynay waxaan soo qaadanay title la eg meeshii wajiga galaysay kalar raba ha ahaadee taasoo aan u qaadanay circle sidaan usoo dooranay. markaan sidaas samaynay kan ayaa dooratay. waxaa dooratay qaybta capacity-ga kadibna waxaan sii dooranay fictors yar oo capacity-ga qaybteeda hoose ah oo noocyo kala duwan weeyaan balse waxaan ka dooranay kan kore ayaan ka dooranay kaasoo aan ku door bidnay inuu ka duwan yahay kalar uu isticmaalayo sida uu ciidaas kor ka dhigayo. sida ayaa ku samayn kadhaa inaad qofka wajigiisa ku qarisid. haddaba la soco casharada taxanaha ee Class Academic and Technology iyo qaybaha kale soo socda Adobe Premiere Pro haddii Ilaahay idmo. haddii ay akademiyada muuqaal samaynta design-ka iyo film editor-ka ay kugu cusub tahay fadlan subscribe-ka ha hilmaamin. kadibna la wadaag asxaabta kale ee doonaysa inay bartaan film samaynta.
waa Ikhlas Academy Technology iyo Cabdinaasir Axmed Jaamac oo halkan kasoo jeedin lesson-ka.